waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني أتكلم ساعتين تيفيا قرنكا إذا درها هرجيسة وأنا مع الخضر هارون موسى يدنيا مادة حسابتها فصل كفومون 10 تهرم كده به مع كل جنب كيس هذا جيومترية 10 كيس كوات إن ك10 كاس إن إحنا عندنا كوكان دونا إن 10 صوص هذا أنت هرا وحويا وسبتشكي كلاس وفوم 1 إن chapter كي chapter كستحادة جيومترية lesson kiisi koowaad ama cashkiisa koowaad magacuna waa lecture-kuna waa macallin Khadar Haruun Muuse objective-ku waxa weeyaan hadafka inuu casharka ka leenahay objectives markaan leenahay objective-ku waxa weeyaan casharka markuu dhamaado waxyaabaha la rabo ardaygu inuu fahmo su'aaladii la weydiiyay ka jawaabi karo waxa kamid ah at the end of the lesson casharka markuu dhamaado kadib student should be able to ardaygu waa inuu awoodo number 1 name inuu magacaabi karo the types of plane shapes plane shapes ka inta loo qaybiyo inuu magacaabi karo number 2 right formula inuu qori karo formulada of right angle triangle markaan formulada leenahay waxaan ka wadnaa sideska Pythagoras theorem ka area ma saddex applied inuu isticmaali karo Pythagoras theorem inuu ardaygu isticmaali karo Pythagoras theorem waxay tahay saddexda qodob waa ahdaafta ama ujeedooyinka casharka aynu ka leenahay weeyi haddaba anagno plane shapes horta waa maxay markaan leenahay plane shapes waxa weeyaan waa shay kasta oo laba dhinac leh markaan laba leen waxaan jeednaa wuxuu leeyahay un dharar iyo balac naming shapes markaan shay magacaabayno you have already met waxaad in badan soo aragtay many two dimensional shapes 2D waxa loo soo gaabiyay waa two dimensional labada dimensional shaygan waa maxay waa dharar iyo balac un bulay markaan joog baa ka maqan kuwan two dimensional shapes here halkan some qaar baa ah which should already be familiar in badan soo aragtay ayaa halkan kamid ah kuwaas hadaba waa kuwan aanu arkayno halka wax ku qoran name-keeni halka wax ku qoran muxuu ahaa illustrationkii cadaynta sawirkiisi ama diagramkii xagga dambana note waxoogaa ku saabsan note oo ku saabsan muxuu ahaa shape kasta meesha noo yaala haddaba markaynu leenahay plane shapes markaan plane shape leenahay waa shay kasta oo laba dhinac leh si haddaba plane shape kaanu qorno waxa ka mid ah haddii lagu weydiiyo plane shapeskaasi circle baa ka mid ah circle waa goobadii waxa ka mid ah triangle baa ka mid ah waa saddexagalkii waxa ka mid ah square-kii baa ka mid ah waa laba jibaaranihii waxa kaloo ka mid ah rectangle waa leydigii rectangle 5 waxa ka mid ah trapezium baa ka mid ah waxa ka mid ah rhombus baa ka mid ah waxa kaloo ka mid ah parallelogram baa ka mid ah waxyaabahaas oo dhan waxay noo cadeynayaan maxay plane shapeska triangle-ka markaan daba sheegayno isaga laftiisa waynu si yar kala saari karnaa markaan leenahay triangle saddexagal weeye triangle markaan leenahay waa saddexagalka isagana waxaynu eegi doonaa saxashka bay nooga soo socotaa saddex baynu yar kala saari number 1 mid loo yaqaano equilateral triangle saddexagal saddexaalo wax la yiraahdo saddexiisa dhinac bay isleeyihiin
saddexdiina xaglood isleeyihiin markaas saddex xagalkaas oo kale sawir ahaan qaabkan uu noqonaya waa inuu isagu iswada leekaano saddex side iyo saddexda angalba calaamadaas waxay sheegaysaa inay dhammaan saddexaasiba isleeyihiin angaleskaasina ay same yihiin waxa kale oo ognahay in saddex xagalku maadaama xaglihiisa guduhuba ay yihiin 180 saddex hadday isleekaadeen waa min 60 bay noqonayaan marka saddex meelood oo min 60 kana 60 buu noqon kana 60 buu noqon kana 60 buu noqon waxa kale oo saddex xagalka ka mid ah mid loo yaqaano isosceles triangle isna waa laba leh isagana laba dhinac baa isleeg isosceles triangle isagana laba dhinac ka mid ah isleeg dhinacyadiisa labadaas isagana isleeg hadday labadaas leekaadaan labada xagloodna isleekaanayaan kaana isna waxa la yiraahdaa maxay isosceles triangle ka saddexaad waxa weeyaan waa right angle triangle kanad aad u taqaanaan right angle triangle saddex xagal quman leh isaga in badan waa taqaanaa waa saddex xagal quman leh sawir ahaan qaabkaas uu noqonayaa xaglihiisa mid ka mid ayaa 90 oo 90 marka muxuu isagu leeyahay haddii xaamad ka mid yahay 90 noqotay labada xaglood ee kale waxay noqonayaan waxa loo yaqaan acute angle markaad maqasho acute angle waa xagal kasta oo 90 ka yar weey waa less than 90 acute angle macnaheedu waa maxay waa less than 90 degree xagal 90 ka yar 30 bay noqon kartaa 40 bay noqon kartaa 60 bay noqon kartaa 50 bay noqon kartaa xagal kasta oo 90 ka yar waxa loo yaqaan waa maxay acute angle marka saddexaas xagalkiina u kala saari karnaa markaan guud ahaan eegno ku soconaa daba cashkeena muxuu ahaa slide-ka haddii aynu markaa laba isla taabo وكوا هذا وكوا ينشيجينه إن الكان سكيم مقعد بينه ويا السلحان سهر كلام خلينا هاي إن وكاث ورهان الإستريشن كذي نوت كوا سيمنتري كلا أبود إن diameter سيمنتري كوا حلا هذا وانقر diameter كستا أدان دوش كأن تهوس كأن بقى لبا إسلاك بو قايبينيا triangle كو و 3 straight sides صد حاجة المكان لنا هاي وحولي هاي صدح حريق أو توصل بولي straight sides صدح دنا أو توصل بولي هاي وحكون هوس وكون مكشكال ليني equilateral triangle have 3 equal sides and 3 equal angles صدح حاجة لو يقانا equilateral triangle كوا صدح حاجة صدح عليها وحولي هاي صدح دنا أو إسلاك يصدح حقلود أو إسلاك حاجة كستانه واللحدن degree كوا حلو يقانا equilateral triangle isosceles triangle سووا وصدح حاجة اللي راد الله عليه have 2 sides and 2 equal sides and 2 equal angles صدح حاجة الكاسينو وحولي هاي صدح حاجة سردنا لبا كمدا إسلاك لبا حقلود أو كمدا كواسينو إسلاكيهين حقله سنة لبا كمدا وإسلاكيهين لبا دنا إسلاك حقله هو إسلاكيهين الرايت أنجل تري أنجل كواس صدح حاجة لسقو حقل قمال له يسقو حولي هاي 1 أنجل هل حقل أو لمدا 90 degree أما 90 degree هل حقل أو 90 degree أيو ليه كوا حلو يقانا سقنا محي الرايت أنجل تري أنجل waxa iyaguna jira kuwa loo yaqaano quadrilateralku waa kuwa loo yaqaano afar geesoolaha afar gees bay leeyihiin waa shape kasta oo afar gees la ama afar dhinac leh waxa la yiraahdaa maxay waa quadrilateral sawirkaas roon arkaya waa 4 straight sides isaguna afar straight ama afar xariiq oo toosan buu leeyahay waxa ugu horeeya square laba jibaarani square have 4 equal sides and 4 right angles square ku laba jibaaran wuxuu leeyahay afar dhinac oo isleeg iyo afar xaglood oo quman marka la leeyahay right angle waa xagal quman cabirkeeduna yahay 90 degree 4 equal sides and 4 equal angles rectangle markaynu sheegayno isaguna waa shape halka inoogu sawiran rectangle ku opposite sides equal and 4 right angles isagu wuxuu leeyahay afar dhinac afartiisa dhinac laba kamida labadiis ka soo horjeedaba isleeyihiin waxa kale uu leeyahay afar xaglood oo quman buu isna leeyahay afartiisa dhinac labada iska soo horjeedaba isleeyihiin afar xaglood quman uu leeyahay kan hadaba waxa tusaale fiican u ah waxyaabo badan oo real life ku isticmaalo imika hadaad samuurada galaaska lagu dhigo kala eegto labada iska soo horjeedaba isleeyihiin hadaad boog haysto eegto sidoo kale waa la mid miiska waa la mid
albaabku waa la mid waxaasoo dhan waxay noo muujinayaan qaabka uu rectangle kuu samaysan yahay rambus baa ku xiga rambuskuna waa shape waxay nagu sawiranaysaa wuxuu leeyahay 4 equal sides afar dhinac oo isleeg opposite sides parallel dhinacyada iska soo horjeeday waa barbaro aan opposite angles equal xaglaha iska soo horjeedaana way isleeg yihiin trapeziumku isaguna waa shaxamka afar dhinac leh afartiisa dhinac laba kamid ayaa barbaro ah one pair of opposite sides parallel afartiisaasi laba kamid ah ayaa parallel parallelogram markaan leenahay waa special rectangle ba haddaan si kala u eegno rectangle-ka oo special ah markaan rectangle ka hadlayno waa special parallelogram wey isaguna waa shape-kaasi both pairs of opposite sides equal and parallel and opposite angles equal isaguna wuxuu leeyahay afar dhinac oo labadii iska soo horjeeda isleegyihiin xaglaha iska soo horjeedaana way isku qiimo isleegyihiin kite baa isna jira two pairs of adjacent sides equal and two opposite angles equal isagana wuxuu leeyahay laba dhinac iska soo horjeedaaba way isleegyihiin labadii dhinac ay isku noqonba way isleegyihiin xaglaha iska soo horjeedaana way isku mid waa isku qiimo pentagonku waxa weeyaan isagu waa shan geesoo leh 5 sides buu leeyahay waa shan dhinac buu kuwaas leeyahay kuwa waxaan soo afar dhinac bay lahaan kuwaas hore dhan hexagonku isaguna 6 sides buu leeyahay octagon isna wuxuu leeyahay 8 sides buu leeyahay marka waxaas oo dhan waxaynu uga dalanaynaa inaad fahmi kartaa arday markaad aragto shape-kan magaciisa iyo waxa loo isticmaalo halka wax kaloo muhiim ah inaan raacino ogaato kuwaada lateralka saddex muxuu ah shay kasto afar dhinac leh xaglahiisa guduhu waa 360 degree haddaan soo qaadano imika square-ka xaglahiisa 360 degree rectangle-ku 360 degree sna way rhombus sidoo kale waa la mid 360 degree way trapezium-ku waa 360 degree way parallelogram waxa kite waxaasoo dhan maxay sheegayaan xaglaha gudaha marka la isku wada daro waa 360 degree way haddaba example 1 tusaalaha koowaad waxa la yiraahdaa what's the name waa maxay magaca of two dimensional shape with four sides and with opposite angles equal waxa la rabaa waa maxay magaca laba dhinac leh kaasoo leh afar dhinac xaglaha iska soo horjeedana ay isleeyihiin afar dhinac buu leeyahay xaglaha iska horjeedana isleeyihiin marka afarta dhinac kanoo kale imka parallelogram aan soo qaadanay parallelogram-ka waa arkaya calaamadaha yar ku samaysan xaglaha labadii isku calaamadihiiba way isleeyihiin way iska soo horjeedaan labada kale isku calaamadihiina way iska soo horjeedaan afar dhinac lagu leeyahay afartiisa dhinacna labadii iska soo horjeedaaba way isleeyihiin the shape has to be parallelogram marka shape-kaasi waa parallelogram buu noqon example-ka labaad draw sawir baa la yidhi and find soona saar the remaining angles xaglaha soo hadhay eeda maxaa la yidhahda koowaad rhombus waxaa la siiyey rhombus with sides kaasoo dhinacyadiisu of length dhererkoogu yahay 4 centimeter and one angle of 120 degree iyo xagal ka mid a xaglihiisaasoo 120 degree draw sawir and find oo soo saar the remaining angles xaglaha hadhay ee koowaad waxaa la yidhi waa rhombus with sides of length 4 centimeter waa rhombus dhinacyadiisu yihiin 4 centimeter and one angle of 120 degree kuwaasoo xaglihiisa mid ka midna tahay 120 degree saynu soo aragnay rhombuska aga hore buu inoogu jiray isagu wuxuu leeyahay afar side afar tubo waa iswada leekaayeen xaglaha iska horjeedana way isleeyihiin iminka tusaale ahaan sawirka meesha inoo yaala xagal ka mid a lagu siiyo waa 120 degree wey xagasha kale ka soo horjeeda waa maxay waa 120 degree haddaan 360 degree haysano 120 degree 120 haysano 240 haysano maxay noo soo hadhay 120 kale labada kalena waxay noqonayaan min 60 oo 120 kay qaybsanayaano waxay noo soo bixi doona 60 iyo 60 bay qaadan doonaan marka ka koowaad taasoo solution-kiisu noqday b-dana waxa la yidhi waxaad sawirtaa soona saartaa a kite with sides of length 3 centimeter and 4 centimeter kan laba dhinac ee adjacent-ka ahaabo isleekaayeenoo waa 3 centimeter maxay kala yihiin 4 centimeter aan smallest angle xagasha ugu yarna waa 60 degree measure cabir the size of the each of the other angles xaglaha kale cabir soo saar kite-kuna waa noocan 3 centimeter labada sare waa min 3 weey labadaas waa 3 centimeter iyo
3 centimeter waa isleegihiin waa taan idhay isaguna wuxuu leeyahay afar dhinac oo labadii adjacent-ka ahi waa isleegihiin labada hoosena way isleegihiinoo waa 4 iyo 4 labada markaan haysano xaglihiisa mid ka mid ah xagasha yar waxa waa 60 degree xagashaata ka soo horjeeda obaska waa idna waa 60 degree la wees leekaayeen haddii taasi 60 tahay ta kalena labada kalema waa inaad soo saartaa adoo isticmaalaya in guud ahaanba uu yahay 360 degree guud ahaan Pythagoras theorem waxa weeyaan aragta uu soo saaray in la jiray muxuu ahaa nin Greek ahaa Pythagoras ninka la yiraahday wuxuu ahaa a famous mathematician buu ahaa nin xisaabiyahano mathematician qadiim muxuu ahaa wuxuu ahaa caana oo in Asian Greece and Greek hore ahaa the theorem hadaba aragtidani which is named waxa loogu magac daray after him isaga is an important result inuu keenay natiijo wax ku oola abo taasoo ku saabsaneed right angular triangles ninkani waxa xooga saaray ama oo aragtida xooga saaray saddex xagalka xagasha quman leh saddex xagal quman leh the theorem aragtidani which is named after him waxa loogu magac daray an important result inuu natiijo wax ku oola ka gaadhay about right angle triangles haddaba Pythagoras theorem aragtidaasi related waxa la xiriirdaa the longest dhinacyada of the hypotenuse waa dhinaca ugu dheer marka ka hadlayna xagal qumanka of right angle triangle to the longest dhinacyada of the other two sides labada lag ee kale ama lagiska kale iyo bayd marka la isku muxuu cabiro muxuu ahay ka ugu dheer hypotenuse aragtidiisu marka waxa isaga la xiriirdaa saddex xagal quman leh dhinacyadiisa hypotenuse-ka oo ah shakaalka isku xidhaya labada lagood iyo labada lagood ee uu istaaglaas ku taagan yahay waa ka sawirahaan imika saddex xagalka markuu xagal quman yahay waa kaasoo waa right angle triangle wey saddex xagal quman la wey right angle triangle saddex xagal quman saddex xagalka xagasha quman leh ee aynu arkayno dhinaca ugu dheer waxa loo yaqaan hypotenuse waa shakaalkaasi laba qodob waa lagu gartaa waa mare warta waa dhinaca ugu dheer inuu yahay the longest side of sides and right angle triangle saddex xagalkaasi in dhinacaasi inuu yahay dhinaca ugu dheer saddex xagalka triangle-kaasi leeyahay waxa kale oo lagu gartaa inuu ka soo horjeedo xagasha quman mar walba wuxuu opposite ku yahay the right angle triangle the hypotenuse is always the longest side waa ka ugu dheer it is always had iyo jeerna the side opposite the right angle wuxuu ka soo horjeedaa xagasha quman buu ka soo horjeedaa marka saddex xagalka noocaasa waa right angle triangle Pythagoras theorem aragtida ninkana waxay ku tacalluqdaa right angle triangle-ka sideskiisa theoremka hadaba waa kan muxuu leeyahay waa inta ugu muhiimsan weey theorem aragtida in right angle triangle aragtida waxay leedahay saddex xagalku hadduu xagal quman leeyahay the square laba jibaarka of the longest of the hypotenuse haddaynu laba jibaarno dhinaca ugu dheero hypotenuse is equal wuxuu leeyahay to the sum isku darka of the squares laba jibaarka of the longest of the other two sides ama legis aragtidani waxay leedahay haddaan soo ururino saddex xagalku markuu xagal quman yahay markuu right angle triangle yahay wuxuu leeyahay dhinaca ugu dheeroo la isku weergareeyey wuxuu leeyahay labada dhinac oo kale oo inta la laba jibaaro la isku geeyo ayaa isleekaanaysa marka saas dhacdo oo dhinaca ugu dheer marka laba jibaarna oo leekaado labada kale oo laba jibaarona isku darnay waxaan odhanaynaa waxa weeyaan waa Pythagoras theorem buu aqbalay waana right angle triangle if we use haddaan isticmaalo letterskan A B and C for the sides dhinacyada of right angle triangle then Pythagoras theorem state that waxay odhanaysaa C haddaynu qaadanay ka ugu dheer oo hypotenuse-ka u qaadanay C square waxay noo leegtahay A square plus B square eeda oo in laba jibaarnay oo aan u geynay B da oo in square garaynay saddex xagalka haddaan dib u soo warno kaas dhinaca ugu dheer C baynu qaadanay labada kalena waa A iyo B where C ay noo tahay is the length of the hypotenuse dhinaca ugu dheer oo haddaan xag hore soo marin waa isku mid dhahdo un A square plus B square equal C square ka theoremka aragtidaasi waxaynu ka fahmaynaa saddex xagalku markuu xagal quman leeyahay ama right angle triangle yahay in dhinaca ugu dheer oo la isku weergareeyay
ay leeg tahay labada kale oo laba jibaarayo la isku geeyey. haddaba halkaa intaynan dhaafin bal markaan leenahay right angle triangle-ka iyo Pythagoras theorem-kaan waxoogaa yar caddayno. markaan leenahay right angle triangle waa saddexagal xagal quman leh weeye. saddexagal xagal quman. saddexagalkaa xagasha quman leh xaglihiisaasi mid ka mid a ayaa 90 wataa. xagashaa 90gaana waxaa sameeya mar walba laba line oo perpendicular isku qotoma ayaa xagasha 90gaa sameeya. waa line-kan horizontal-ka ah iyo kaa taagana vertical-ka halka iska jareen ayay nooga samaysaa xagasha 90 angle-ka. haddaba right angle triangle-ka Pythagoras theorem-ku ninkani waxa ku tacalluqa aragtidani saddexagalkeenu markuu saas oo kale yahay hypotenuse-ku waa dhinaca ugu dheer c baynu la bixi waa hypotenuse. labadan kale mid waa a midna waa b. labadani waa legiska lugaha uu ku taagan saddexagalkani weeye. c-duna waa maxay? waa shakaalka dhinaca isku xidhaya labadaa lugood ee ku taagan yahay a iyo b uu ku taagan yahay ayaa aynu isna u qaadanayna muxuu ahaa inuu yahay a iyo b waa c weeye. marka haddaba aragtidan waxay leedahay dhinaca ugu dheeroon laba jibaarnay waxay inoo leeg tahay labada dhinacee kale oo la laba jibaaray oo aynu isku darnay. sidaas hadday dhacdo waxa weeyaan waa Pythagoras theorem-kaan isticmaalay. saddexagalkaasina waa right angle triangle. haddii markaa a square layna weydiiyo waxaynu ku helay c square minus b square. haddii b square layna weydiiyana waa c square minus a square. markaa formulooyinkaasaan isticmaalay laakiin waa inaynu fahamno mar walba aad maskaxda ku hayso saddexagalku hadduu xagal quman leeyahay in mar walba dhinacaasoo la laba jibaar uu leeyahay labada kale laba jibaarayo la isku geeyey. haddaba tusaale aynu ka qaadano example-kan verify caddee Pythagoras theorem for the adjacent right angle triangle. saddexagalkan meesha inoo yaala ayaa waxaa lanaga doonaya inaan soo saarno muxuu ahaa inaan caddayno saddexdii sir baa lagu siiyey. waxaa lanaga rabaa inaan caddayno ama proof garayno maadaama saddexdii baan haysano in dhinaca ugu dheer oo hypotenuse-kii oon laba jibaaranay au leekaado labada kale oo laba jibaaranayoon isu geynay. saasi hadday dhacdo waxa weeyaan waa right angle triangle buu noqonaya. marka haddaba saddexagalka halkaa inoogu sawiran waa example. xagga waxaynu haysanaa halkan waa xagashaynii qumanayd. halkaasi waa 41 waa hypotenuse-ka ugu dheer. halkana waa 40 halkana waa 9 wey. waxaan haddaba soo saari doonaa solution-ka markaan daba nidhaahno balse aynoo caddayno a waxay inoola mid tahay waa 9 b waxay inoola mid tahay waa 40 and c waxay inoo qaadani 41. haddaba waxaan leenahay a square waxay inoola mid tahay waa 9 square oy macnaheegu tahay 9 times 9 oo la simida 18. waa markaynu laba jibaarno eedaan qaadanin. b markaynu qaadanana waa 40 la isku wargareeyey oo la mid ah 40 lagu dhuftay 40 oo ah 1600. haddaan haddaba labada isku geyno oo nidhaahno markaa a square plus b square haddaan labadan isku daro waxaan isku daray wixii ka soo baxay natiijadii oo odhanaysa 81 plus 160. 81 loo geeyo 1600. marka a square plus b square waxay isku leeyihiin 1681. halkaa waxaan ku haystanaa laba dhinac oo kale isu geynay waxa weeyaan 1681. haddii dhinaca kale markaan laba jibaarno intaas uu soo baxo waxay noqonaysaa right angle triangle. bal siina haddaba soo qaadano c-na waxaynu haysanaa waa 41 la isku wargareeyo oo dhiganta 41 lagu dhuftay 41. qaadabaan isku dhufano labada 41 markaynu ku dhufano 41 maxaa soo bixi hal baynu ku dhufanaya waa halkii uun hal afar ku dhufo waa 4 haddana 4 ku dhufo waa 4 uun 4 ku dhufano waa 16. intaa aan sugayna haddaba halkaas waa hal la 4 uge 8
1681 marka halkaasna waxay nooga soo baxay 1681 marka hadda waxaynu ka fahamnay labadaasoo in isku eegran isu geynay inay isku leeg tahay dhinacii hypotenuse-kan laba jibaarnay waxaan daba leenahay therefore c square equal a square plus b square kol hadday labada isleekaadeen kol hadday labada dhinac hypotenuse-kan laba jibaarnay hadduu labada kale isku leekaado maxaa odhana markaa waa maxay waa right angle triangle this is a right angle triangle a right angle triangle saddex xagalkaasi xagal quman boon inagoo markaa Pythagoras-kiina right angle triangle inagoo Pythagoras-ka isticmaala waxaan caddaynay inuu noo yahay right angle triangle exercise-kaanuma page-ka buugaad dalka kala socon doontaa markaa waxtaa inoo caddaatay inuu waxaas yahay maxay right angle triangle halka waxay noogu dhammaan cashkeeni koowaad ee chapterka saddexaad ee geometry-ga form 1 casharada tayramkii dambe intaynu cashirkan midna kulmi doono oo anigoo macallaqada Harun Musadina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno